بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعنا ونكسن صاحب بيال داوديال هالكا نقد داونيسان وجنال كينو كلنا يوتيوب كيتوبتا وراركا waxaad ku soo dhawaataan warar iyo warbixino wararkii ugu dambeeyay laga helay dagaalada u dhaxeeya wadamada Ukraine iyo sidoo kale Ruushka qodobada daawan doontaan saaxiibayaal daawadayaal waxa ka mid noqonaya Ukraine waxay helaysaa saad cusub waxaa lagu kaalmeynayaa dagaalka niyad baa loo yeelayaa si ay u sii gasho isla markaana ay u qabsataba magaalooyin iyo gobollo ka tiro badan kuwa ay iminka gacanta ku dhigtay saaxiibayaal daawadayaal barnaamijkeena ayaan idinku soo gudbin doonaa Ruushka waxa uu muuqanayaa mid la sii markaasiba tiirinayo oo laga adkaanayo madaxweyne Vladimir Putin qorshihiisa ama damaciisa ayaan falaqayn ku sameyn doonaa maadaama gobollo fara badan Ruushka lagala wareegay ilaa iyo haddana wax dhaqaaqa aysan sameeyeen Talyaanigu waxa uu Ukraine u ballan qaaday in uu gaarsiinayo saanad military iyo sidoo kale mid dhaqaale oo ugu deeqaya Kiev madaxweyne Vladimir Zelensky ayaa arintan ku farxay sidoo kale waa soo qaadan doonaa khudbad cajiib ah oo uu jeediyay ninkan xilli ahaan jiray majaajiliiste fagaarayaasha kaga qoslisiya dadka markaasiba masraxyada soo xaadira daawadayaal saaxiibayaal barnaamijkeena ayaan idinku soo gudbin doonaa koobka adduunka ee ka furmay Qatar sidoo kale xog ayaan saaxiibayaal idinkaga eenaa halkan ayaan idinku soo gudbin doonaa kulamo ayaa dhacay sidoo kale kulamo ayaa dhici doona koobkan ayaana la ciyaari doonaa ilaa iyo 18 bisha soo socota ee December xog culus ayaan saaxiibayaal idinkaga heenaa dagaalka Ukraine saameyn ceenkee ah ayuu ku yeelan karaa koobka adduunka ee ka furmay dalka Qatar oo wadamo fara badanba ay halkaasi kubadda cagta ku ciyaarayaan daawade saaxiib soo dhawow muuqaalkeena like saaro oo sii share garay inagu soo biirtay aad nooga mid noqotana saaxiib daawade channelkeena subscribe saaro oo furagan balaalka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muuqaalada inuu halkan idinku soo gudbino markaana saaxiib daawade aynu ku bilaawno waxa la soo warinayaa in dagaalada Ukraine ay sii kordhayaan maalinba maalinta ka sii dambaysa ciidamo ayaa la duldhigayaa ciidamo kale oo fariisimo ku sugan ciidamada wadanka Ruushka ayaa iska raaxaysanaya muddo 8 bilood dagaalka kan ayaa ay ku tamashileynayeen waxaana la arkayay iyagoo furimo la wareegaya oo faraxsan balse bishii ugu dambeysay ee sagaalaad waxa la warinayaa in guuldaro qaraar ay dhadhaminayaan ciidamada wadanka Ruushka ciidamada Ukraine ayaa guula gaaraya waxaana madaxweynaha wadanka Ukraine Vladimir Zelensky uu soo dhaweeyay guulaha wax ku oolka ay ciidamadiisa u soo hoyinayaan qarankiisa Ukraine dagaaladan sii socodshadooda ayaan dunida faa'iido ugu jirin balse waxa la aaminsan yahay in Ukraine oo iska dhicisa Ruushka ay calaamad weyn markaasiba bixin doonto maadaama Ukraine la yeesay oo la liiday dagaalkan bilaabashadiisii oo xitaa la aaminsanaa in saacado qurah ama daqiiqado ama maalmo qurah dukum dalkan laga dhigi karo oo ciidamada wadanka Ruushka ay gacanta ku dhigi karaan taas ayaa beenowday ciidamada wadanka Ukraine ayaa iska caabin sameeyay waxaana ay la wareegayaan haatan gobollo hor leh oo ciidamada wadanka Ruushka ay gacanta ku hayeen gobolka Kherson ayaa kamid ah meelaha ay isaga ruqaansadeen ciidamada wadanka Ruushka sidoo kalena ciidamada Kiev ay la wareegeen gobollo kale ayaa jira oo xitaa bariga wadanka Ukraine marka laga hadlayo ciidamada wadanka Ruushka waxa laga qabsaday magaalooyin hor leh oo markaasiba muhiim u ahaa Luhansk iyo sidoo kaleba gobolka kale ee Donetsk la yiraahdo ayaa ila xogogaala oo aanu helayno waxay noo xaqiijinayaan in ciidamada wadanka Ukraine ay halkaasi ku sugan oo ciidamada wadanka Ruushka lagala wareegay dagaaladan ayaa waxay yihiinba kuwa aad u culus oo dunida saameyn xun ku reebay Talyaaniga ayaa haatan warbixin uu soo saaray ama bayaan uu soo daabacay waxa uu ku leeyahay waxa Ukraine siinayaa saanad cusub si ay markaasiba isaga difaacdo weerarada iyo duqeymaha tooska ee ciidamada Moscow kaga imaanaya Talyaaniga si uu u ansixiyo sharci cusub oo ku saabsan saadka Ukraine waxa uu sameynayaa wax kasta
oo karaankiisa ah oo dadaalo ah si Ukraine ay u hesho kaalmadan Talyaaniga markaasiba uu ugu yaboohayo. Talyaanigu wuxuu ansixin doonaa ayaa lagu yiri bayaan soo baxay sharci cusub oo ku saabsan saadka militariga iyo rayidka Ukraine oo dhan markaasiba tiro baaxad leh sanada 2023. Wasiirka gaashaandhigga Guido Crosetto ayaa sidaasi u sheegay wargeyska la yiraahdo Tu Foglio. Sharcigu waxa uu u ogolaanayaa xukuumadda Roma in ay gargaar u soo dirto Ukraine iyada oo aan codsanba ogolaanshiyaha baarlamaanka markasta oo ku saleysan wareegto dhacaysa dhamaadka sanadkan. Wasaaradda gaashaandhigga ayaa wax yar soo jeedin doonta in dib loo cusbooneysiiyo isla cabirkaas iyadoo la gaarsiinayo dhammaan 2023 ayuu yiri Crosetto oo ah wasiirka gaashaandhigga ee wadanka Talyaaniga. Sidii hore u dhacdayba Talyaanigu wuxuu sii wadi doonaa bixinta hubka waqtiyada iyo siyaabaha aan ku heshiin doono xulafayadayada Atlantic iyo sidoo kaleba Kiev. Waa muhiim ayuu yiri Crosetto, sidaas ayuuna sii raaciyay bayaankiisa oo uu markaasiba sii daayay. haddii aynu warbixinada Ukraine iyo sidoo kaleba Ruushka halkaas aan ku dhaafno markaana ciyaaraha adduunka oo ka furmay wadanka Qatar Doha, waxaa la soo warinayaa in ciyaaraha adduunka ay sanadkan ka xiisa iyo xamaasad badan yihiin sanadihii hore. dhacdada tan ayaa la qabtaa 4 sanaba mar, waxaana ku loolama wadamo dhowr ah oo 5 markaasiba qaaradood ka kala imaanaya. dalka Qatar ayaa martigelinaya tartanka koobka adduunka ee 4 sanaba hal mar la qabto. haddaba waxaa markaasiba la sameeyay gurubyo, waxaa halkaasi la isugu beegay wadamo kala gedisan. kulankii ugu horeeyay ayaana furmay taariikhdu markii ay ahayd 20 bisha 11 ee November sanadkan. waxaa lagu furmay ama lagu furay martigeliyaasha tartanka Qatar iyo sidoo kale wadanka Ecuador, waxaana 2-0 lagu garaacay wadanka martigelinaya ciyaarta tan Qatar, waxaana ku badiyay wadanka Ecuador. waxaana kulankaas uu ka dhacay garoonka la yiraahdo Al Bayt Stadium. waxaa xogihii ugu dambeeyay markaasiba ciyaarahan ku saleysan markaasi tilmaamayaan in ciyaaro xiiso leh ay harsan yihiin. xulal dhowr ah ayaa markaasiba loo saadaalinaya. waxaa markaasi kamid ah xulalka loo saadaalinaya Argentina, Brazil, sidoo kale waxaa kamid ah France, inkastoo xulal kale oo waaweyn xitaa markaasiba ay jiraan. xoga dhowr ah iyo dhacdooyin fara badan ayaa laga diiwaangeliyay kulankii ugu horeeyay ee ciyaaraha adduunka markaasiba lagu furayay ee Qatar markaasiba ka qabsoomay. waxaana ciyaaryahankii ugu horeeyay ee dhaliya goolkii ugu horeeyay ee koobka kanu noqday Ener Valencia oo ka tirsan wadanka Ecuador. goolkii ugu horeeyay ayuu dhaliyay, sidoo kale goolkii labaadna isla isaga ayaa markaasi shabaqada gaarsiiyay. sidoo kale xogaha iyo dhacdooyinka la yaabka ah ee ciyaartan laga bartay waxaa markaasi kamid ah in aayadaha Quraanka Kariimka lagu daafuray maadaama ciyaaruhu ay ka dhacayaan wadan markaasi muslim ah oo markaasi Qatar ah. sidoo kale heestii ahayd haya haya oo lagu daafuri jiray ciyaaraha koobka adduunka ayaa la boosgareeyay oo markaasiba la joojiyay. Qatar ayaa sidoo kale mamnuucday in ragga iyo dumarka ay isdhex galaan xilliyada ciyaarta la daawanayo oo taageerayaasha markaasiba ay daawanayaan. sidoo kale waxaa la joojiyay wax kasta oo anshax xumo ah oo dhaqan xumo ah oo diinteena Islaamka ay mamnuucday markaasi inay taageerayaasha iyo dadka kale ciyaarta ka soo qayb galaya ay sameeyaan. ciyaaro fara badan ayaa markaasi qabsoomay. wixii ku soo kordha saaxiibayaal daawadayaal waa la socon doontaan. wadanka Talyaaniga oo dhowr jeer ku soo guuleystay koobka kan ayaa sidoo kale ka maqan tartanka koobka adduunka sanadan 2022 ka furmay wadanka Qatar. saaxiibayaal daawadayaal waa daawan doontaa wixii ku soo kordhay nabaddiino.